dalalka adduunka iyo dadyoga ku nool ayaa waxay leeyihiin caado dhaqameedyo kala duwan. Denmark ayaana ka mid ah dalal kale caado dhaqameedyada la yaab kale. Wargeyska Daily Telegraph ee dalka Ingiriisku waxa uu booqday wadooyinka dalka Denmark waxaana uu inta badan ku arkay geedka qarfaha. Haddaba waxa la isweydiiyay waa maxay sababta wadooyinka Denmark uu u dhooban yahay hareeraheeda geedka qarfaha. Waxaana la ogaaday inay ka qayb tahay caado dhaqameed soo jireen ah. Waxaad gaartay 25 sano welina ma aadan guursan. Haddaba haddii aad joogto markaas dalka Denmark waxa kugu waajibaysa qoyskaada iyo asxaabtaaduba in ay geedka qarfaha kugu tuuriyaan inta marka hore geed kugu xiraan. Haddaba arrintaasi ma ahan mid sahlan maxaa yeelay marka hore waxa lagu xiri doonaa geed marka dambana qof walba oo ku soo agmara ayaa waxa uu kugu soo tuuri doonaa geedka qarfaha iyo wax walba oo agtiisa yaala oo aan dhibaato ku geysanaynin. Wargeyska Daily Telegraph ee dalka Ingiriiska ayaa waxa uu daba raacay caado dhaqameedkan soo jireenka u ah ummadda reer Danish. Waxaana uu ogaaday in kumanaan sano ka hor uu caado dhaqameedkaani soo bilowday. Dadka iibiya geedka qarfaha ayaa waxa ay u safraan dunida dacaladeeda waxaana inta badan ay gababaan iyagoo doob ah. maxaa yeelay waxaan caawinaynin waqtiga oo aan ka caawinaynin in ninka iibinaya geedka qarfaha uu hal meel saldhigto halkaasna uu ka raadsado gabadhii uu nolosha kula midoobi lahaa. Taasi waxay sabab u noqotay in mararka qaarkood dadka iibiya geedka qarfaha aysan xitaa helin gabar ay nolosha la qaybsadaan. waana sababta dadka reer Denmark qof walba oo doob ah oo dhaafay da'da 25 sano ay u ciqaabaan ama ugu maadeystaan. Sidoo kale gabar walba oo dhaaftay da'da 25 sano isla markaana wali aan guursan loogu tilmaamo coon u baahan inay degdeg ku guursato. Waxaad gaartay 30 sano walina ma aadan guursan waxaadna tahay nin Denmarkeys ah. Markaas waxa isbedelaya agabka lagu ciqaabayo basbaas iyo barbarooni ayaana la soo raacin doona. reer Denmark ayaa sidoo kale isticmaalo ukun iyo waxyaabo kale oo uraya si qofku uu isku nacnaco marka lagu soo tuuro waxyaabahaas. Haddaba dalka Denmark ma jirto qof ilaa iyo haatan lagu xukumay in uusan guursan oo maxkamad ay xukuntay. waxaana la sheegaa celcelis ahaan ragga Denmarkeyska ahi inay ku guursadaan da'aadda 34 sano iyo bar dumarkuna ay ku guursadaan 32 sano. ciqaabtan ayaase waxay tahay ciqaab soo jireen u ah doobka iyo coonta marka la joogo dalka Denmark waxaana ku maadeysanaya qofkaas asxaabtiisa iyo familkiisa waana caado dhaqameed muddo badan soo jireen ahayd oo qofka lagu maadeysto.